horta gudoomiye baafinta waxa ka horeeyay inuu gudiga isku yeedho gudoomiye gudiga isaga la isku yeedhista isaga la gudiyuna isku timaado anagoo ka mas'uulaa bulshada soo doorateen la jecelaynana mashaariicaha laga fulinayna doonayna inuu mashruuc waaro noqdo deegaanka iyo dawladda hoose iskaashanayana ay shidaalka bixinayaan baabuurtaas gaadiidkaas uu ku shaqeynayo xildhibaan Cabdiraxmaan Nuur Abukor iyo xildhibaan Maxamed Dayib oo ka tirsan golaha deegaanka degmada Gabiley sidoo kalena kamida gudiga hawlaha guud ee golaha oo maanta kormeer ku tagay wadada isku xidha Gabiley iyo Caada ayaa ka waramay halka ay marayso mashruuca wadadaasi xildhibaanadani ayaa sidoo kale jawaab ka bixiyay eedeymo uu maalintii shalay ahayd warbaahinta u mariyay xildhibaan Aydaruus oo ka tirsan golaha deegaanka sidoo kalena ah gudoomiyaha gudiga hawlaha guud ee golahaasi iyagoo arintaasi ka hadlaya ayaa waxa hadaladoodii kamid ahaa waxaanu kormeer ku marnay wadada Gabiley Caada oo ay shaqadeedu socoto wadadaasi oo la dhagax dhigay bishii 12 sanadkii 2022 si rasmi ah u bilaabantay sanadkii 2023 iminkana si fiican ay hawsheedu u socoto gabagabana ku dhow wadadan markii ay bilaabantay la bilaabay waxa loogu talagalay wadadan inay noqoto wado xoolaad wadadu may gaadheen Caada way Caada iyo waxay isku jiraan 42 kilomitir bay isku jiraan halka laamida laga soo bayrayo ilaa Caadu waxa dhinaa 9 kilomitir wadadaasi markii ay mareysay shirkadaasi arkaawada ay dhigtay ana banaysay 19 kilomitir ayaa waxaanu in badan kormeer ku soo marnay oo wadada soo marnay wadadani waa wada halbowle ah oo ay maraan gaadiidka waaweyn ee ka yimaada dalka Djibouti una jeeda magaalo ganacsiyeedka Togo Jaale gaadiidkaasi oo raran iyo gaadiid fara badan wadadan cabirkeedu waa 30 kilomitir dhererkeedu baliceeduna wuxuu ahaa wadada ay ahayd baliceedu 5 mitir ay ahayd qarada wadaduna waxay ahayd 20 sentimitir suurtagal ma ahayn wadadan waxaanu aragnay inay wadadii suurtagal u ahayn inay gaadiidka waaweyn isku dhaafaan ama ay gaadiidkuba isku dhaafaan oo ay caqabad dib ku tahay wadadana ay tahay wada halbowle ah oo mustaqbalka u baahan in laami la saaro iminkana carrakaawo aad u wanaagsan laga dhigo isku tashi hadaba markaa aan sameynay iyo tala isku leeyimaadeen hay'adda horumarinta wadooyinka Somaliland RDA iyo dawladda hoose ee degmada Gabiley oo gudiga hawlaha guud iyo gudiga fulinta dawladda hoose ayaan kulamo ka yeelanay waxaannu halkaasi isla garanay inaanay suurtagal ahayn wadadan inay sidan ku socoto ay caqabadna ku noqonayso waxaan isla garanay wadadan in la ballaariyo oo ballaca wadada laga dhigo 8 mitir qaradana laga dhigo 30 sentimitir si ay gaadiidka waaweyn u maraan oo looga faa'iideysto wadadaas kadib waxaan la kulannay Save Children iyo shirkadihii anagoo ku qancinay inay wadadani u baahan tahay in la ballaariyo sidana aanay ku soconayn sana aanay ummadda iyo dadka aanay ku anfacaynin waxaan markaas la garanay wadadii in la soo gaabiyo lagana dhigo 22 kilomitir baliceedina laga dhigo 8 mitir dhererkeedina laga dhigo 22 ka qaradana 30 sentimitir laga dhigo waxa la naga codsaday in hadaba la sameeyo 30 mitir si loo dhameystiro 30 kilomitir si loo dhameystiro in ballanqaad ah sameeyo hay'adda RDA oo iyadu Somaliland u qaamirsan horumarinta wadooyinka shaqadan la wadaana ay shaqadeedii tahay waxa la isla gartay in dawladda hoose iyo hay'adda RDA ay dhameystiraan 30 kilomitir iyo dadka deegaanku inta ka harsan 30 ka waxa kale oo halka yaalay iyaduna jirtay 9 kilomitir oo halka ay wadada ku joogaysanaysa magaciisa ilaa Caada u dhaxaysa intaana in lagu daro wadada markaa waxa ka dhiman 20 kilomitir 20 kilomitirna shaqadeedii imika way socotaa gudoomiye baafinta waxa ka horeeyay inuu gudiga isku yeedho isaga gudoomiye gudiga isaga la isku yeedhista isaga la gudiyuna isku timaado hadda gudidu kala maqan tahay gudoomiyaha ka kala maqan tahay hadda gudigooda joogtana gudoomiyaha ku wada joogtaa gudidu way shaqaysaa waxaana ka shaqaysaa wadooyinka muddo 7 bilood ayaan wadadan taagnaynay inuu ku mashquulsanayn wadooyinka kale aanu ku mashquulsanahay meeshii wax ka jiraan baan ku mashquulsanahay qarankaanu u shaqaynaynaa ummaddaanu u shaqaynaynaa gudoomiyuhu isaga ayaa gudida ka maqnaa malaha baafintii isaga la baafin waayay
ayuu guddida baafiyey shaqadii dawladda hoose ma shaqadani shaqadan waxa la RDA waa shaqadii dawladda dhexe ku shaqale dawladda hoose awood booma leh inay lacag inta le ku fuliso wada ka baxsan magaalada gudaheega dadka deegaanka iyo dawladda hoose iskaashanayana ay shidaalka bixinayaan baabuurtaas gaadiidkaas oo ku shaqeynayo guddida hawlaha guud iyo jidadku waxay guud ahaan hawlaha golaha deegaanka ugu qaabilsan tahay kormeerka mashaariicaha socda guud ahaan gobolka waxaan ku leenahay talo iyo tusaalan ku leenahay iyo in iska kaashano dawladda dhexe cidii ka mas'uulka ah iska kaashano anagoo ka mas'uula bulshadana soo doorateen leex jeceleynana mashaariicaha laga fulinayna doonayna inuu mashruuc waara noqdo oo noqon mashruuc joojooba noqon waxaanu anagoo isla kaashanayna hay'adda wadooyinka Soomaaliland iyo guddida iyo fulinta oo maarkiyo kala socdaan ayaa hawshan markaan darisnay eegnay cabirkii wadada iyo qaradeedii ay hoos u dhaceen inaan wax ka bedel ku sameeynay aad iyo aad horta ugu mahadsan yihiin Save the Children iyo bangiga horumarinta Afrika codsigii aan ka gudbinay naga aqbalay keenayna in maaragtay wax ka bedel lagu sameeyo mashruuci lagu sameeyo cabirkii la kordhiyo Sikriya Nuux Ibrahim telefishinka CBA gobolka Gabiley